بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد درسه عاوح كساب سيهي العلم ودوره في بناء المجتمعات أقونتا يدورك أما waxa ay ku leedahay kaalinta ay ku leedahay dhisidda bulshooyinka warkooban marka aad tilmaamo wuxuu noqonayaa inuu idhaahdo dunida tan waxa ilaahay dhigay subxaanahu wa tacaala ee asraara kownku bay idhahdeen waa khazaana mali'atun bilasraar marka kownka waxa nimco taalla korkiisa iyo hoostiisaba iyo waqtiga labadaba waxa lagaga faa'iideeyaa inta aqoon la hayo sawgeed marka ay tilmaamayaan cilmiga iyo qiimaha uu nolosha ku leeyahay waxay yidhaahdaan idaa aradta dunya facalayka bilcilm wa idaa aradta alaakhira facalayka bilcilm adduun haddaad doonayso aqoonta ogow aakhira haddaad doonaysana aqoonta ogow labaduba waxay ku xidhan yihiin aqoon waxaan isku dayayaa markaa maadaama wakhtigu aad u kooban yahay inaan tilmaamo ru'uusi alaqlaam inaan meel fog istaago oo wax ka tilmaamo koo waxaanu tilmaami doonnaa qur'aanka iyo siduu uga warramay cilmiga أهم أدوات الخلافة في الأرض بينهدان علماء إن دولك بني آدم كو خلافة كسمعيه ودقو أقب كوغوين ووباهن يبينهدان إلهي وسيي ملائكة اللوغو سجود سيي اللوغو كراميي آدم وعلم غيرهدان آدم ملائكة كما بدنين تصبيحي عبادة هنا iyo quwa khaariqa u watay laakiin waa aqoontii cilmiga hidaa la siiyey subxaanahu wa tacaala sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma acradahum cala almalaa'ika faqaala anbi'uunii biasmaa'i haa'ulaa in kuntum saadiqiin qaaluu subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim culimmadu waxay idhahdaan marka aadam wixii koowaade la soo siiyey ee mu'ahalka uga dhigay inuu dego dhulka kan waxay ahayd aqoon nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu soo diray loogu talagalay dunida inuu bedelo risaaladii ugu dambaysay ilaa qiyaami saaca joogaysa loo soo dhiibo awal aayaad lagu soo dejiyey waa shanta aayadooda ugu horeeya suurat alcalaq iqra bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونصوص كورميسا قراءة هي علمي هي قلم كورميسا علماء يدادان afarta aayado afarta suuradood ee ugu soo hordegay qur-aanka bay yidhaahdaan waa suuradda tan iyo mudathir iyo muzammil iyo nuun walqalam way isweydweydaariyaan say usoo kala horreeyeen laakiin un afartaa waxa ka mida baynu leenahayna nuun walqalami wamaa yasturuun ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iyana inoo tilmaamayo uu ku dhaananayo qalinka iyo wamaa yasturuun ay maa yaktubuun qalinka iyo waxa la qorayo waxay culammadu yidhahdaan qur-aanku aalaafi lmawduucaat buu ka warramaya laakiin awal mawduuc nebi maxamed lagu soo dejiyo isagoo ummiyo aan waxbana akhrinin waxay ahayd qiraa'o iyo cilmi si awgeed bay culammadu yidhaahdaan waa muftaaxu haadihi dunya muftaaxu fahmi dunya walaakhira baa cilmiya weliba bay yidhaahdaan waxbarashada qaybta ugu adag oo qoraalka ah
waxbarashada cilmi dhagood waa lagu qaadan karaa laakiin qaybteeda ugu adag oo qofku qoraal inuu wax ku sameeyo ay nusuustani ka warramaysaa bal culimada qaarkood waxay sii tilmaamaanba kownkan ba ilaahay markuu bilaabayay qalin baa la abuuro la yidhi uktub si axaadiista saxiixii ku soo aroortay carabi wakhtigaa waxay ahayd cilmi waxa ugu dambeeya ay ka fekeraan aqooni agtooda may oolin khuraafiya jahli baa yaallay taariikhdooda camiiqaana kuma jirto aqooni laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku bilaabay qadiyat اlcilm taasi waxay tilmaamaysaa bay culimmadu leeyihiin ahmiyadda aqoontu ay u leedahay bulsho in la bedelo waayo nebi moxamed waxaa loo soo diray inuu bulsho bedelo inuu dunida isbeddel ka sameeyo waxay kaloo culimmadu tilmaamaan ilaahay markuu nebi moxamed u manno sheeganayana wuxuu ugu manno sheegtay waأnzla allahu calayka alkitaaba wاlxikma wacallamaka maa lam takun taclam wakana fadl اllahi calayka cadiima dayn war kooban tilmaamna waxay dhahdaan ereyga alcilm alcayn wallaamu walmiim iyo mushtaqaadkiisu 797 jeer bay qur-aanka ku soo aroortay waa iyadoo aynan tilmaamin erayada kale ama caqliga ama fikirka ama nadarka ama yaqiinka ama waxaa ka warramaya oo iyana erayo cilmiya ah sunnadana dee iyada tirabada kitaabka bukhaariga qura baa la yidhaahdaa 300 jeer buu ku soo arooray marka sunanka kale iyo kutubta masaanida iyo waxa kaloo dhan idan waxaad intaasi waxay tilmaamaysaa bay yidhahdeen ahmiyadda cilmigu guud ahaanba u leeyahay waana wixii ilaahay faray nebi moxamed inuu ilaahay weydiistay in loo kordhiyo waqul rabbi zidnii cilma waana axaadiista saxiixiisay tilmaamayso salaada subax markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tukado waa baryaba wuxuu ku ducaysan jirayna kan buu ahaa isagoo dabaqaya waqul rabbi zidnii cilma allahuma inii asaluka cilman naafica warisqan طayiba wacamalan mutaqabala salaad subax kasta gadaasheed inuu xadiidka kan akhriyo masalada tan waxaad ka garan kartaa inuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dunidaba qiimaheedu inuu aqoontayay waxeeda kale inaanay qiimo badan lahayn addunya malcuuna malcuunun ma fiiha ila dikra allahi wamaa waalaah aw caaliman aw mutacalima ama waa caaliman wa mutacalima adduunku inaanu qiimo samaynaynin ilaahay xuskiisa iyo cilmiga wixii ka soo hadha aadanuhu markaa loolan buu ugu jiraa noloshan siduu u guulaysan lahaa asaasu najaaxi lumamna waa aqoon sidaa ogeed baynu leenahay waa aadam markii la dooranayay wixii lagu doortay waa wixii koowaade nebi moxamed lagu soo dejiyey dowladaha ugu waaweyn ee islaama ee soo maray dunida qur-aanku uu ka warramayna waa waxa ilaahay ku sifeeyey alcasr الdahabi lidowla alyahuudiya waa nebi daa'uud iyo sulaymaan markay joogeen iyo taaluut oo bilaabay casru dahabi waa 3 boqor markay isku xigeen baa la tilmaamaa qur-aanku wuxuu kaloo ka warramay dhowrka nin ay culammadu yidhaahdaan duniday dacal ilaa dacal mareen ama dunida intii ugu badnayd bay qabsadeen dulqarnayn baa ka mid ah dhammaantood ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aqoon weliba markaan hoos u tilmaamo aqoontaasi mid sharciyeedna way lahayd mid tanaynu maadiga ku sheegnana ama culumi xayaatiya culimmada qaar yidhaahdaan culumta nolosha ku saabsanee kalena way lahayd sidaa awgeed ayaa reer banu israa'iil markay yidhaahdeen boqor baanu doonaynaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u tilmaamay waqaala lahu nabiyuhum in allaha qad bacaa lakum طaaluuta malika qaluu anaa yakunu lahu اlmulku calayna wanaxnu axaqu biاlmulki minh walam yu'ta sacata min almaal qaala in allaha اصطafaahu calaykum wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljism reer banu israa'iil markay yidhaahdeen boqor baanu rabnaa na dagaal geliya iyagu waxay moodayeen dee dadkan magaca ku dhexle ama xoolaha haysta ama kuwa in la dooranayo laakiin ilaahay mid kale u doortay oo ah lagu tilmaamay ciidan hogaamintii waxa ay u baahnayd inuu leeyay cudud iyo laxaad
iyo aqoon baa ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala. nebi daawuud iyo muuse iyo sulaymaan ilaahay subxaana wa tacaala markuu u manno sheeganaya mulkigii la siiyey waxa laga horraysayey cilmiga la siiyey. walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilma waqaala alxamdu lilaahi aladii fadalana calaa kaiirin min cibaadihi almu'miniin. bale sulaymaan markuu sheeganayay nicmooyinkii ilaahay siiyey wuxuu sheegtay yaa ayuha الnaasu cullimnaa mantiqa طayr yaa ayuha الnaas cullimnaa mantiqa طayri wauutiina min kuli shay ina hada lahuwa alfadl اlmubiin. bale waxaynu qur-aanka ku aragnay shimbir nebi sulaymaan u sheeganaya aqoon inuu dheeryahay aanu sulaymaan haynin. shimbir yaro hudhud la yidhaahdo oo war soo helay dheeraado aanu nebi sulaymaan hayn ayaa wuxuu lahaa axadtu bima lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin. waxaan soo koobin baan soo koobay buu leeyahy. saba meesha la yidhaahdo waxaan kaaga keenay naba yaqiin ah, war la hubo. cilmiga gebigiisubana waa information, waa macluumaad. cilmigu maaha wax cusub aad keenayso, waa wax alla abuuray oo aad ogaanayso siduu u shaqeeyo. aqooni waa intaa. waxaan aqoonta bini aadamku wadoo dhammi wuxuu daraasaynayaa wax ilaahay abuuray siduu u shaqeeyo inuu fahmo, kadibna inuu isticmaali karo. marka waa information bay yidhaahdaan, waa khabar. wuxuu sheeganayaa shimbirka kane khabar inuu hayo aanu haynin nebiyullaahi sulaymaan. marka aan soo koobo nusuus aad u badan oo qur-aana ka warramaysa, waxaanay tilmaamaysaa ambiyadaasi dowladaha xooggaa haystay inay aqoon, iyadoo ambiyadoo dhan ilaahay aqoon guud soo siiyey oo waxyiya, haddana mid kale ina iyaga ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. bale waxaa kugu filan aqoonta xataa maadiga ah ama alcilmi التطbiiqiya waxay yidhaahdaan applied science, cilmiga know-howga isu bedelay, qaabka wax loo qabtoo isu bedelay, ee theory nadari ka guuray. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya rusul baan soo diray. laqad arsalnaa rusulana biاlbayinaat waanzalnaa macahum اlkitaaba wاlmiizaana liyaquuma الnaasu biاlqisط waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid. ilaahay wuxuu leeyahy rusul baan soo diray, bayinaat cadcad iyo xujaj iyo mucjisaad baan ku soo diray. waxaan soo raaciyey kitaab iyo miisaan xaqa iyo baatilka lagu kala garto. waxaan saa u yeelay baa ilaahay leeyahay dadku inay cadaalad ku sugmaan. waanzalna alxadiida baa ilaahay yidhi, xadiidkana waa soo dejiyey. waxay yidhahdaan xadiidku wuxuu ka mid yahay xadaaraadka dhismahooda waxay ku dhismaan. ugu horrayn culamada saynisku waxay tilmaamaan xadiidku inaanu ka mid ahayn maadada dhulka, oo markay hadda tilmaamayaan chemically siday u samaysmaan atomisku terrestrialka dhulku inaanu suurtagal ahayn. xataa markay lahaayeen wuu karayay in xadiid ku samaysmo. xadiidku waa shay meel kale ka yimi baa laysku waafaqsay. scientifically xadiidku inaanu ka mid ahayn dhulka waxa yaalle wax meel kale ka yimi inuu yahay. fasirintii hore waanzalnaaga waxay ku fasiri jireen bimacna alkhalq, laakiin iminka waxaa la og yahay inay inzaalkeedii rasmiga ahay tahay, sidiisa uu xadiidka loo soo dejiyey. taa markaynu dhaafno horumarka bini aadamku ee xadaaraadku markayna intaynan enerjiga soo gaadhin wuxuu kala xoog badnaa sidii birta farsamaynteeda iyo soo saaristeeda loogu kala xoog badnaa. ugu horrayn sanaacaadka haqiilka ama sanaacaadka waaweynee dunidu may dhismin intii aan productionka iron ku bilaabmin. hadday tahay maraakiib, hadday tahay treenno, hadday tahay daaraha la dhiso. daaraha dunidu intaan xadiidkan farsamadiisa saanay loo baranin 4 kama badnayn ilaa 5 oo dhoobadan qawskee la dhisaa. hadday 4 ama 5 injineerinkeedu dhaafo way dumaysay. si awgeed markii la ogaaday birtan shubka lagu dhex shubi karo ay soo baxday, ayay bilaabantay in tabaqaadkan dhaadheer la dhisi karo. ugu horreyn waxaan leenahay marka qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebi daawuud waalanaa lahu alxadiid baa ilaahay yidhi. waxaanu u jilcinnay birta
farsamada birta baa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala oo uu ka samaynayay duruucdii iyo wixii lagu dagaalamayey iyo wuxuu ku dagaalgalayay oo dhan nebiyullaahi sulaymaan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya cayn alqitr in loo dareeriyey waalqitru fi luga waxay ku tilmaamaan annuxaas almudaab aw alxadiid almudaab inuu yahay alqitru haddii la yidhaahdo alqatru haddii la yidhahdo waa roobka alqutru haddii la yidhahdana waa min aqtaari samaawaati walard alqitru haddii la yidhaahdo markaasoo qaafka la hoos dhigo waxay idhahdaan waa alxadiid almudaab aw الnuxaas almudaab shubka la shubo naxaasta ama xadiidka waxaa nusuustaa usii tilmaamaya waxay tahay technologygu markuu aqoontu markay practical isu bedeshaabay qiimaha samaysaa dilqarnayn ilaahay markuu tilmaamayay waxaa lagu tilmaamayay inuu lahaa aatuunii zubra alxadiidi xataa idaa saawaa bayna sadafayn qaala انfukuu xataa idaa jaclahu naara qaala aatuunii ufriq calayhi qitra xadiid iyo qطr mudaaba xadiid mudaaba ama nuxaas mudaabu isku daray si uu nimankii meesha lagu xidhayay uu si fiican ugu xidho science oo dhamme wuxuu ka warramaa speed and time bay yidhaahdaan technologyga horumarkiisu waa laba shay un wakhtiga waxaa lagu qabanaya in la dedejiyo iyo makaanka wuxuu qaadanaya in la sii yareeyo sanacadu mar kastoo ay sii yaraato ay horumarto shaygu mar kastoo wax yar sii noqdo la sii yareeyo waa horumaray marka aqoonta cilmigu waxay qabataa laba shay inay spaceka yarayso wax la dhigayo lagu samaynayo iyo wakhtigu waxaasi wax ku qabanayo in la tiro badiyo ilaahay markuu ka warramaya nebi sulaymaan waxaa la tilmaamay dabayla inay qaadayaan speed samaynaya ka dheeraynaya wixii markaa la watay oo gelinna bil sii soconaya in la socday gelinna in leeg soo soconaya waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya cilmiga iyo aqoonta uu leeyahay nebi sulaymaan markuu rabay balqiis inuu soo qaado oo loo keeno carshigeedii ilaahay wuxuu ku sheegay cifriit min aljin baa yidhi anaa la soo duulaya oo intaanad shaqada ka bixin baan keenaya qabla an taquuma min maqaamik shaqada inta aad ku jirto ayaan keenaya ilahay wuxuu sheegay waqaala aladii cindahu cilmu min alkitaab qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab kii aqoonta la siiyey kan ammaan waxa ugu filan in sifadiisa la sheego laynama sheegin inuu jin yahay inuu malaa'ig yahay inuu insi yahay midda ku qoladuu noqdo toona qiimo badan samayn mayso waxa qiimo samaynaya waa farsamada uu garanayay waxa qiimaha samaynaya waa kaa saa daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahay qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab kii aqoonta la siiyey ayaa wuxuu yidhi intaan ilbiriqsi ka yar ayaan ku keenaya kullu haadihi nusuus waxaan rabaa inaanan sii balballaadhin sharaxe soo koobo waxay tilmaamaysaa aqoontu weliba markay aqoontu know-how isu beddesho markay isu beddesho applied science wax farsamo oo la isticmaalaya markay noqoto inay tahay kullama bini aadamka horumarkiisa iyo dheerayntiisa iyo xooggiisa uu ku jiro waxaa kaloo la socda bay yidhaahdaan culammadu xirfadyahanimada oo umamka maanta marka la qiimaynayo waxa la qiimeeyaa maalan muwaasiinta ay wax ku qiimeeyaan horumarka waxaa ka mid ah ummadda milyankii qofba imise baaxitho cilmiya bay leeyihiin waxay kaloo wax ku qiimeeyaan milyankii qofba imise xirfadyahan baa ku jira technicians imisaa ku jira nebi sulaymaan markii ilaahay inooga warramayo boqortooyadiisii aadka u ballaadhnayd waxaa laynoo sheegay xirfadyahano khatara inuu haystay wa min ashayaaiini man yaguusuuna lahu wayacmaluuna camalan duuna dalik shayddaamo farsamo yaqaana buu haystay oo badyo berriba wax ka keenaya farsamadiisu waxay gaadhsiisanayd islaantii mufasiriintu ay balqiis ku sheegaane haysatay saba markay timi qiila laha dkhuli sarxa baa la yidhi dhismahan gal falamaa ra'atu xasibathu lujja in meesha biyo ku jiraan bay mooday oo lagu dhacayo laakiin meesha waxay ahayd sarxun mumarad baa la yidhi dhisme dhalo laga dhigay oo aanad arkaynin waxa ka hooseeya aan kuugu muuqanaynin siduu yahay intaasoo dhan waxaan uga dan leeya inaan tilmaamo un qur-aanku qiimaha uu siiyey cilmiga ama kiisa aynu iminka maadiga ku sheegna ha noqdo ama kii waxyiga ha noqdee
ummadda muslimiinta ah waxay maanta dunida kaga jirtaa baan leenahay meel dambe. sababtuna waxa weeyaan waxay dayacday wixii aadanaha dhismihiisa iyo dowladnimadiisa ka qayb qaadanayay ama horumarka wixii uu ku salaysnaa. waxay yidhaahdaan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan bini aadamka dunida kor jooga marka la eego muslimku rubuc ka mida weeyaan. afartii qof ee dunida marayaba midbaa muslima. haddana bay leeyihiin marka la eego aqoonta sayniska iyo technology-ga iyo politicalka iyo economicskaba, dhaqaale, siyaasad, cilmi, meel dambaynu maraynaa. inaynu meel dambe marayno waxa kuugu filan ixsaa'iyaad waxoogaa ayaan idiin sheegi doona. tiro koobiyo waxay dhahdaan dhaqaalahii dunidu sanadkii samaysaa waa ilaa 60 trilyan. aadanaha kor saaran dhulku dhaqaalaha uu soo saaraa bay dhahaan waa 60 trilyan. muslimku wax 3 trilyan ka yar buu soo saaraa. dunida 60 trilyan baa la soo saaraya dhaqaalaha, muslimku 3 trilyan wax ka yar. waxay dhahdaan dhaqaalaha muslimiintu sameeyaan oo dhan 70 milyan ee faransiiska baa ka badan. bal waxa laga yaabaa inay ku labalaamayso 120 milyan ee jabaaniiskii dhaqaalahay soo saaraan iyo tiro koobka caalamul islaam oo dhan carab iyo cajamtiisaba isku dar dhaqaalahay soo saaraan 120 kaas nuskeed bay soo saaraan. 120 sanamka caabuday inaynu nuskii la dhaqaalo noqonnaa inagoo dhulka intaa leeg leh oo adduunka intaa leeg joogana waa ceeb runtii. ka soo saaray ka dhaqaalo badanta dhaqaalaha Spain soo saarta iyo 12 waddan ee shidaalka soo saara. Spain taayar baa GDP-geedu ka badan yahay. Abu La'la al-Mawdudi Abu al-Hasan an-Nadawi baan u jeedaa raxmatullaahi calayh, sheekhi hindiga ayaa dhintay baa wuxuu leeyahay qarnigii 16aad wixii ka dambeeyay muslimiintu su'aalihii cilmiga ahaa iyo sayniska ku saabnaa waa ka seexdeen. su'aalaha metaphysics-ka ka warrama, ilaahiyaadka iyo waxa ka warrama ayay ku mashquuleen. saa daraaddeed may ka soo bixin buu leeyahay maskaxihii waaweynaaye lagu yaqaanay. waa sababta keentay buu leeyahay cilmiga iyagu soo saareen intay ilaabeen inay hidiya dhaqankii ku noqdaan iyo baadiyaha wixii lagu hayay. taasi buu leeyahay waa waxa ka dhigay inay addoommo u noqdaan nimanka reer galbeed buu tilmaamaya. marka adduunka la xisaabinayo aqoontu qiimahay ku leedahay maadaama aynu sheegnay iyo horumarka meesha ay ka taagan tahay. مثلا الأمم المتحدة UN qaybteedan UNDP la yiraahdo taqriir ay soo saareen waxa ay ku tilmaamayaan dunida masiixiga ah kristanka sheegata marka la isku daro Yurubteeda iyo kuweeda kaleba boqolkiiba 90 baa wax qora. that means illiteracy-goodu dadka aan waxna qorin waxna akhrinin waa boqolkiiba 10. si kale markaan u tilmaamno waxay leeyihiin 15 waddan oo dunida kristanka ka midi qof aan wax qorin ma joogo. dadkoo dhan waxbay qori karaan waxna waa akhri karaan. dunida muslimka si haddaynu eegno isku celcelintooda boqolkiiba 40 baa wax qori karta. qiyaas caalamul islaami dunida masiixiga marka la eego bay yiraahdaan dadkooda mutacalimiinta boqolkiiba 98 baa dhammaystay dugsi hoose. dunida muslimiinta ana boqolkiiba 40 ka aynu sheegnay 50 ka mid ah ayaa dugsi hoose ka baxay. that means 50 ka mid ah dugsi hoosena kama bixin. waxay yiraahdaan dunida reer galbeedka ama masiixiga marka la isku daro dadkooda mutacalimiinta boqolkiiba 40 baa jaamacad tagay. muslimiintana boqolkiiba 2 jaamacad tagay. boqolkiiba 2 markii horeba boqolkiiba 40 bay waxbarashadoodu ahayd. 40kiiba boqolkiiba 2 jaamacad ka tagtay. qolana marka hore waxbarashadooda boqolkiiba 90 ahayd. 90kiiba haddana boqolkiiba 40 ay heer jaamacadeed gaarsiisay. wadannada inaga inoo aqoon-yahanka Masar baa ka mid ah boqolkiiba 30 baan waxna akhrinin waxna qorin. 29.6 bay yiraahdaan. haddaynu si kale u tilmaamno boqolkiiba 30 baan gacantoodu musxafka taaban bay yiraahdaan.
ila garan maaye waxay tilmaamaan ma faqri baa maya faqri maaha ee aqoontan qiimo ku lahayn agteenna kuuba wadannada faqrigaa bay ka mid tahay da'yarteeda u dhaxaysa 15 jir ilaa 24 jir qof aan wax qorini kuma jiro waa kuuba waa waddan faqiira haddii faqri lagu xisaabtamayo dadkeeda waaweynna boqolkiiba 0.2 ayaan wax qorin 0.2 waa imisa waa mid 10 meelood loo qaybiyey laba ahaan boqolkiiba 98.8 ayaa wax qora dadkeeda waaweynna waxaa la mid ah Brazil, Chile, maxaa la yidhaahdaa Colombia, wadannada yaryar caynkaas boqolkiiba 97 ama 98 baa wax qora waxna akhriya dhan kale wax lagu qiimeeyo haddaynu marro caalam alislaami oo dhan 600 jaamacadood ba ku yaala bay yidhaahdaan bilyan iyo badh ama 2 bilyan oo bini aadam 600 jaamacadood leh waddanka Maraykan oo qurina marka instituteskiisa iyo jaamacadkiisa la isku daro 5,000 iyo dhowr boqol weeyaan inta accredited-ka ah inta muctamadka ah ee 4 sano oo qualified ah ayaa 2,618 jaamacadood that means hal waddan baa muslimka oo dhan marka la isku daro 4 jeer ka jaamacado badan muslim oo dhan marka la isku daro bilyankiisa iyo dheeraadkiisa si kale haddaan u tilmaamo 57 waddan baa muslimku majority yahay 57 ka waddan ee muslimka ay maalan jaayisada caalamiga ee Nobel Prize-ka la yiraahdo 3 goor bay weligood qaateen 3 goor ayay weligood qaateen saddexdaasina xataa tira maaha saddexda qaatay saddexduba markay jaamacaadka levelka hoose caalamul islaami ku barteen bay ka tageen laba iyagoo Maraykan joogay qaateen jaamacaadka Maraykan bay baxtiga ku sameeyeen midna isagoo Talyaaniga iyo Ingiriiska joogo baxtiga ku sameeyay oo ku qaatay laba chemistry ku qaadatay waa nin Turkiya iyo nin Masriya midna waa Pakistani nasiib darrada ka Pakistaniga waliba waa qaadiyaan isagu marka waxaynu tirsanayno dhami oo muslim Nobel Prize qaato dhan haddii la isku daro waa 3 nin oo gaalada la joogay ee jaamacaadkii islaamiga ahaa ee caalamul islaami wixii ku yaalay waxba may soo saarin that means 0.05 Nobel Prize dunida la bixiyay intaasaynu ka qaadanay gaal mulxid oo la yiraahdo Neil deGrasse Tyson nin madow oo Maraykan ah oo aqoon-yahanada sayniska laga dambeeyo ka mid ah ana mulxid aan ilaahay rumaysanayn alla adriya ayaa wuxuu leeyahay 15 milyan oo yuhuudda dunida joogto dhammaan waa 15 milyan marka la eego buu yiri taariikhda 1902 ilaa inta la soo gaadhay 2010 intii u dhaxaysay 150 Nobel Prize bay qaateen 15 milyan ee dunida joogay yuhuudda waxay qaateen 150 Nobel Prize oo science ah ka hadlimayo kuwa khuraafada ee maxaa la yiraahdaa caalamul islaam la qaatay inagu Nobel Prize-keenu qaadana ma taqaanay waa saadaad baa qaatay yuhuuddu la heshiiyey carafaad baa qaatay yuhuuddu la heshiiyey hablaha xuquuqda dumarka u dagaalama shiriin inantii eeraanada xuquuqda u dagaalanta biiskay qaadatay nabadda qaadatay inantan yamaniyada xuquuqda u dagaalanta tawakkal baa qaadatay yartii caruurta ahayd 17 jirka ahayd Pakistan ahayd Malala baa qaadatay inagu waa kuwa layna siiyaa hablaha xuquuqda u dagaalama Nobel Prize-ka qaata Peace Nobel Prize nimanka yuhuudda la heshiiya adabka labay muslimiintu qaateen labaduna midi waa Najib Mahfoud awlaadu xaaratina buu ku qaatay ma akhrideen wadin la'aan wuxuu qoray diin la'aanta lagu siiyay mid ka kalena waa Turki isna diin la'aan baa lagu siiyay wuxuu yiraahdaa cultural muslim baan ahay kuwa wax aaminsan meeyay dhaqankaygu baa islaamka ka soo jeeda adabka kuwa laynoo siiyayna waa kuwa Nobel Prize-ka qaateen yahuudo 15 milyan hina
marka la eego cilmiga dhakhtarnimada iyo biology-ga wada socda 196 Nobel Prize baa dunida la bixiyay 49 bay yuhuudi qaadatay chemistry marka la eego 158 baa la bixiyay Nobel Prize 28 bay yuhuudi qaadatay physics marka la eego 158 baa la bixiyay 45 bay yuhuudi qaadatay dhaqaale marka la eego 66 Nobel Prize baa dunida la bixiyay taariikhda aynu sheegnay ilaa 2010 laga gaadhayo 28 bay qaateen that means wixii Nobel la bixiyay science ku saabsanaa 15 milyan ee yuhuudi boqolkiiba 25 bay qaateen Gillespie oday la yiraahdo Mareykanka ani gaboobay hadda dhowraysiga jira laakiin waa culimada looga dambeeyo taariikh ulum science history ee wuxuu leeyahay markaan eega buu yidhi medieval period-ka waqtigii loo yaqaanay al-usur al-wusta quruntii dhexe dunida 130 caalim baa jiro magacooda la xusi kara buu leeyahay oo aqoonyahan iyo scientist iyo technologies ahaan jiray 120 ka mid ah caalamka muslimka ka yimaadeen buu yidhi Yurubna 4 bay ku lahayd waa 130 nin ee dunida aqoonteeda hogaaminayay kama warramaya hadda tii sharciga ahayd maaha waxaan ka warramayaa tii kale 130 nin ee hogaaminayay dunida waqtigaasi medieval period-kii oo dhan ayuu gaalkan Mareykan wuxuu leeyahay 120 baa caalamul islaami ka yimi Yurub oo dhan 4 baa ka yimi mulxidkii Niil Sahaba wuxuu isweydiinaya war siday u dhacday buu leeyahay bilyan iyo dheeraad muslim bilyan iyo bar dadku dhadhow ama 1.3 1.5 waxay doonaan sheegaan intaasoo muslima oo aabayaasho dunida hogaaminayeen oo cilmi ku hogaaminayeen maanta inay wax la'aan dhacda xagay ka timi wuu isweydiinaya waa nigaale markaas wuxuu leeyahay 15 milyan inay inta helaan bilyan iyo bar muslimana in la waayo iyagoo shalaytana dunida iyagu hogaaminayay waliba su'aasha wuxuu ku daraya uu leeyahay dadkii aan taariikh cilmiyeed lahayn iyaga kama hadlayo buu leeyahay kuwani taariikh cilmiyeed bay lahaayeen buu leeyahay waa wawiyadood dadkii aqoonta tan hogaaminayay xagay ka baxday buu leeyahay isagu uu isu jawaabayaa inkastoo laga yaabo jawaabtiisa inayna wada raacin waxa jawaabihiisa ka mid ah wuxuu leeyahay labada kala jar baa isbedelay labada dhaqan baa isbedelay qolana cilmiga ay qiimaysay qolana cilmiga ay qiimo la'aan ka dhigtay waay qolana cilmiga uu qiimaysay qolana cilmigu qiimo la'aan u noqday tusaale ahaan caalamul islaam oo dhan waxaynu dhil 600 jaamacadood baa ku yaala dunida carbeed bay yiraahdaan jaamacaadka ku yaala boqolkiiba 75 rubco qarnigii ugu dambeeyay qarniga 20aad baa la dhisay waxaynu wax baranaaba haddaynu bilownahay waa boqolkiiba 75 waxa jaamacad carabi leedahay iyagoo jaamacaadkii dunida ugu horeeyay Fas baa ugu horeysa Azhar baa ku xigta Zaytuna ku xigtaan u maleynaya kulay labada jaamacadood ugu horeeyay Fas baa ugu horeysa Azhar baa laba ah jaamacatu al-Qarawiyyin iyo jaamacatu Azhar iyadoo jaamacaadda dunida haddii la sheego wixii ugu horeeyay hadda dhisana iyagu lahaayeen wixii baabee horena iyagu lahaayeen waa Qurtuba waa Baghdad waa kan magaalooyinkooda ahayd waa Samarqanda maanta se waddankan yar yar yuhuuda Falastiinta boobtay waddankooda yar 25 jaamacadood higher education baa ku yaala marka loo qaybiyay bay yiraahdeen milyankii qofba 4 jaamacadood bay helayaan halkii milyan ee yuhuud ku nooliba 4 jaamacadood baa u dhisan 250 kun qof baa jaamacad leh innagana waxay yiraahdeen caalamul islaami jaamacaad ka dhisan iyo dadka marka la isu qaybiyo 3 milyan ba hal jaamacad leh 3 milyan ee muslima ayaa hal jaamacad leh dhanka haddaan ka eegno jaamacaadka marka la qiimeynayo waxa lagu qiimeeyaa waxay tilmaamaan waxay yiraahdaan global ranking sida jaamacaadka dunidu u kala qiimo fiican yihiin مثلا waxa jira 3 group oo wax qiimeeya Shanghai ranking mid la yiraahdo oo jaamacad ay leeyihiin Chinese kuwa bilowday 2003 baa filaya meelahaasi GPS World Ranking mid la yiraahdo QS World Ranking mid la yiraahdo iyo jaridadan Time la yiraahdo mid ay leedahay saddexdaas haddaad baadho saddexdaba
shanta boqol ee jaamacadood ee ugu horeeya sanawaadka qaarkood jaamacad muslimba kuma jirto ama xabad baa ku jirta. haddaba waa shanta boqol ee jaamacadood ee dunida ugu horeeya. definitely waqti dhoweyn wixii ka horeeyey labada boqol ee jaamacadood ee dunida ugu horeeya muslimba kuma jiro. waxa jaamacad muslim ku taala kuma jirto. iyadoo saddexda qiimeed kriteeriyada waxay wax ku qiimeeyaan ay weliba kala gedisan yihiin oo haddii systemkan ay ku soo bixi weydo ay ahayd systemkan kale inay ku soo baxdo. waqtiyada qaarkood shanta boqol ee jaamacadood maraykan oo qura 168 keligii leh, ingiriis oo qura keligii 40 leh. 20ka jaamacadood ee dunida ugu horeeya 17 maraykan keligii leeyahay, saddexda soo hadhay laba ingiriis leeyahay. 10ka jaamacadood ee dunida ugu horeeya 8 maraykan baa leh, labana ingiriis baa leh. haddaad eegto shanta boqol ee jaamacadood ee dunida ugu horeeya 34 jabaan baa leh. idan haddaad sidaa u eegto G7ka la sheegaya dee waa jaamacaadkii ugu waaweynaa un dadkii haystay, waa dadkii cilmi baadhista sameeyey, waa dadkii aqoonta lahaa. walidalik ma jecli ceebta muslimka inaan sii baadhbaadho, laakiin intaa waxa ka sii daran adigoo aan jaamacad haysan wax tarto oo qiimo samaynaysa. imikay dhowr midhoo sacuudigu leeyahay ayaa mid sacuudiga leeyahay boqolka koowaad hadda soo gashay, laakiin labada sabjiga ay ugu fiicantahay mid baa af ingiriisiya iyana oo ay jaamacadda shanaad ee dunida ka tahay af ingiriisiga soo waxga tarayo. marka loo eego Malaysia dhowr leh, dhowrka boqol ee jaamacadood ku jira, siba labada boqol ee jaamacadood ugu horeeya hadda 4 bay leeyihiin. turkigu intan dambu soo socda 2 jaamacadood buu ku lahaa. intaa waxay nagaga sii daran waxoogaageenii iska rafaadka ahay intay soo saaraan intaas bay haddana qaataan. intii lacagta lagu bixiye lasoo hele lasoo saaray markay bislaadaanna hijratulcuquul baa bilaabantay. waxay yidhaahdaan brain drain, maskax dareer bay u bixiyeen. waxaa la yidhaahdaa waddanka maraykan sagaashanaadka wixii ka dambeeyey 12 milyan buu qaatay, bale 1995kii wuxuu bedelay fiisayaasha uu bixiyaa noocayiin. waxay ku tilmaamaan sanadkii 2003dii wuxuu bixiyey 200 oo kun oo fiise oo 100 kun oo ka midi programmers qorayiin. si kale haddaan usoo tilmaamno waxay yidhaahdaan maraykanku inuu dunida ka horeeyo qura ma rabo ee wuxuu rabaa inta xidigaa in leeg inuu ka horeeyo. saa daraaddeed midhkaad adigu lacagta ku bixisee soo saartayna wuu iibsanaya, wuu qaadanaya. waxay yidhahdaan dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta boqolkiiba 50 yurub iyo ameerikay joogaan. dawa carabtana dhakhaatiirtay u baahnay. dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta 50% ka midii waxay degan yihiin north america iyo maxay iyo yurub bay degan yihiin. waxay injineer lahaayeen oo dhan boqolkiiba 23 iyana galbeedkay jiraan. waxay culamo khubaraa lahaayeen boqolkiiba 15 galbeed bay jiraan. ingiriis oo qura dhakhaatiirta joogta boqolkiiba 34 baa carab ah. waxay ingiriis ka dhakhtara boqolkiiba 34 baa carab ah. that means intii lacagta lagu bixiyey ama yurub loo diray la soo saaray ama meelahan ba lagu camcamiyey la soo saarayna intiina lacag bay ku qaateen oo dib bay u iibsadeen. saa daraaddeed waxay dhahdaan ardada caalamka carbeed ay u dirto inay jaamacaadka reer galbeed ka soo baxaan boqolkiiba 54 baan dib u soo noqonin. xamala shahaadaat alculya bay dhahdaan shahaadooyinka sare culamada sidatee carbeed sanadkii 2000 marka la tiriyo 450,000 baa joogay galbeedka. maxaa soo hadhaya markaa? haddii marka hore lagaa aqoon badnaa oo lagaa jaamacada fiicnaa oo lagaa wanaagsanaa, marka dambana waxoogaaga yar aad soo saarto. gaal malaaxidada ka mid ah doctor Michia Kaku la yidhaahdo, asalkiisu waa indha yar laakiin waa maraykan, ayaa wuxuu leeyahay Silicon Valley ma jireen buu leeyahay haddaanu H1B visa aanu jirin buu leeyahay. visa jira la yidhaahdo H1B
oo maraykanku bixiyo haddaan fiisahaasi jirin buu leeyahay silicon valley ma jireen waayo dunidu maanta waagii hore shirkadaha dunida ugu lacagta badan leh 10ka shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh waxay ahaan jireen shidaal iyo gawaadhi 10kuba shirkadaha shidaal ka shaqeeya iyo shirkadaha gawaadhida imika mid ama laba kaga jirta 10ka shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh aqlay ku xoogsadeen ee commodity ma haystaan qalab ma jiro waa programmiya wax la mid ah waa Amazon shirkadda ugu xooga badan leh waa gaalkan Windows gala maxaa loo dhigay Bill Gates waa gaalkan kale imika gawaadhida iyo wax soo saaray ka wuxuu diray isna maxaa la yiraahdaa isku soo dar waa kan Facebook oo samaystay waa Google qolada samaystay labada arday samaystay dhammaantood waxbay qorqoreen una program ay samaysteen wax kale ay yaqaaniin ma jiro program ayaa dunida billionaire loogu yiri haddana laba shirkadood ka mid ah hadii dhaqaalahooda la isku daro caalamul islaami oo dhan waxay soo saaraan bay ka dhaqaale badan karaan laba shirkadood ka mid ah aqoontu xooggaasay dunida leedahay aqoontu xooggaasay dunida leedahay oo dadkii commodity waxay yiraahdaan khamka materialka khamka dunidu kuma horumarto ee manufacturing bay ku horumartaa ma jira bay leeyihiin wadan dunida hogaamiyay waan industrial ahayd wadan macdan soo qoda ama shidaal soo saara ama mining soo saaro horumarsan dunida ma jiro ninka soo walwalaaqo baa horumarsan kaasoo baa dunida ku shaqaysto xoolaheeda haysta kan laakiin ceelasho ay ku yaaliin laga soo qodaa waa un ceelka laga la baxaa wixiisa qiimo ma samaynayo saawgeed ay wax isku dayeen Maraykan maanta galkaasi Michelle Kaku wuxuu leeyahay science PhD waxa sameeyay Maraykan degani boqolkiiba 50 dabad bay ku dhasheen Maraykan uu ku dhalanay dad miinisu wixii aqli dunida jiray wuxuu isku dayay hadduu wax barasho ku keeni kari waa inuu lacag ku keeno oo dabeetana uu isagu kiisa wax ku baro afrikadan madoowa taqaaniin waxay yiraahdaan 20,000 oo caalim oo ay leedahay bay sanad walba Yurub ka qabtaa dabeetana bay yiraahdeen khubaro la taliso si ay u soo kireystaan 4 bilyan oo lacag oo kale ku bixiya qiyaas inaad caalim soo saartaa marka hore mise bilyan buu kugu joogaa markii la soo saarayna kuwaas qaatay sanad walba 20 ka qaataan khubaro waxaan uga daleeyay markaa haddaad maqasho dunaa horumartay dhidid bay ku horumareen iyo waxbarasho iyo wax soo saar bilaash kumay horumarin cid inta iska seexatay badhaadhay oo horumartay ma jirto cid aqoon adeegsatay ayaa horumartay innagana waxba inagama xigaan inaynu horumarno waxba inagama xigaan go'aankeenna inaga xiga inaynu shacab iyo dawlad iyo qiyaadaba inaynu yeelano go'aan ah inaynu aqoontu inay qiimo tahay aragno cilmigu inuu wax yahay inaga cilmiga wuxuu ma aragno haddii marka aynu rabno horumar dadnimadiisa ka dhigaya waxay ku xidhan tahay sidaynu waxbarashada u qiimayno nolosha adduunye horumartayna waxbarashay ku horumartay alaab la soo iibsadana laguma horumaro daara dhaadheer oo la dhiso tagaal la keeno daar dheer ku dhisay waxa laguma horumaro dad kolba carabi tiraada daarta dunida ka dheer ugu dheer baan u dhisaynaa iyaga iyo daarahoodaba dad baa isku leh iyaga iyo daarahooda iyo shidaalkoodaba dad baa isku leh waxaa la yaabantii maxaa farta loogu yeedhaya maxaa waxaan laynoo leeyahay maxaa caynka de waa laynaga xoog batay waynu seexannay de haddaad seexatana ogolow soomaalida maahmaahadeedu maxay ahayd miskiin baa miska la fuulo laba yidhaahdeen adduunka cid isuma naxdo naxariis ma jirtee waa ninkii wax iska dhiciya unbaa dad noqda soomaaliya way jabtay maxaa dunida noogu soo oryi wey war waa lagu sii korayaa cid ku soo kicinaysaa ma jirto mid gaal professor
jooga Cambridge University oo kuwa ka dambeeyaan ayaa nin sheekh Soomaaliyeed oo ardada meesha wax ka barataaba wuxuu yidhi waxaan weydiiyey su'aal ah war waddankaygi waa kan degi waayo idinkuun baa ku jira maxaa naga rabtaan intuu dib u jiifsaday buu cabaar fakeray ayuu wuxuu yidhi wixii laydinla rabaa weli laydin yeelsiin ma laydin gelgelaya intaa haa ka odhanaysaa wixii laydinka rabay baan weli laydin yeelsiin buu yidhi tii baydan weli aqbalin marka inta taa ka gaadhaysaan waa ahaanaysaan buu leeyahay in caynkaa laydin wado calaa kulli xaal warkaygu wuxuu ku kooban yahay aqooni haddaad aakhiro doonaysana facalayka bilcilm haddaad adduun doonaysana facalayka bilcilm وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين